صلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا ولا فربنا فائدنا ولا فائدوين كيس waxa kamida toddobadan arrimood marka uu horeyso qofka nabiga ku saleeyaa wuxuu faa'iideeyaa ilaahay amarkiisa inuu qaato ajrigi allana uu helo akhlaaqdi ilaahay iyo malaa'igtana uu qaato ila nabigu wuxuu takhalluqu bi akhlaaqillah ilaahay akhlaaqdiisa qaat ilaahay iyo malaa'igtiisi way ku saleeyeen marka hadaynu inaguna ku saleeno rabbi baynu ku raacnay iyo malaa'igtiisa waxa uu qofkii faa'iideeyaa inuu 10 jeer ilaahay ku saliyo qofka nabiga ku saliyay sallallahu alayhi wasallam ilaahay malaa'ig ilaahay saligiisuna waa inuu naxariisanayo adoonka ama uu amaanayo الثناء عليه في الملأ الأعلى بين أيمada qaarkood caalamka kore ayuu ilaahay ku amaanaya iyo malaa'igta dhexdooda marka inuu ilaahay ku amaano 10 jeer ama uu ku naxariisto wax weyn weey waxa labaadoo lagu helayaa shafaacada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo abaalaynu ku qabno qofka markuu muadinku aadaamo intuu yiri oo kala ka daba yiraahdo igu saliya halat lahu shafaacati shafaacada u sugantoo waajibtay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa ka faa'iidaa hamigu ilaahay kaga yareeyaa qofka humuum badan baynu xambaarsanahay waxba inagu si ah culaysyo badan baa dadka saaran iyo diiqado waxyaabaha ilaahay uu ku fududeeyay ayuu kamid yahay saliga nabiga asxaabigi Ubay ibn Ka'b markuu nabiga ku yiri waqtigayga saligaagan ku qaadan hamigaaga la kaafiib hamiga laga dul qaadi waxa afraado aynu kaga ka faa'iideyna waa sabab liqurb al-abd minhu yawm al-qiyamah adoonka uu ka sali badan yahay buu nabiga ugu dhowiyay maalinta qiyaamaha أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وحديث صحيح الترمذي كسوغان ما لنت قيامة عدة يقولوي وعدة يقصل بدن النبي صلى الله عليه وسلم وحشنات وكفى إذا أوى سبب رد الرسول صلى الله عليه وسلم في رده وإنه النبي كاقاض أي سبب نقول يسايو ما قف كستو يقصل لي النبي سلقيسا markuu igu saleeyay ilaahay ruuxdaydu ii soo celinay ana ka qaadaya marka nabiga sallallahu alayhi wasallam siga ku jawaabaya riwaaya kale waxa ama xadiis kale isaguna saxiixa inna lillahi malaa'ikatan sayahina fil ardi yuballiquni as-salama min ummati malaa'ik dhulka wareegaysa buu ilaahay leeyahay oo qaabilsanun inay saliga ummadu igu saleeyay aniga ay soo gaarsiiyaan xadiiskaasina waa saxiix فوائدك waxa kamida ducadaada in la aqbalo waxyaabaha caawinayo kamid yahay inaad saliga ku soo khatinto waxitaamu misku ninba ducaysay ayaa tukanayay ilaahayna ma amaanin nabigana kuma saliin nabigu wuxuu ajila hada kani uu degdegay wixii ducadiisa lagu aqbali lahaa muu yeelin istawa saxiix waxyaabahaas maalinka jimcaha inaynu sii badino nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadana wuxuu inoo sheegay in warbixin lagu siinayo saliga ay ugu saleeyaan badiyo maalinka jumcaha fa inna salatakum ma'ruudatun alay hadithki sahih abi daawud ku sugnaa saligin wala yardinaya meel kasta caalamka joogo telefoonada ilaahay baa nabiga ku rakibeen hebel baa kugu saleeyay hebel baa kugu saleeyay hebel baa kugu saleeyay taasay ugu soconayso marka faa'iidooyinka iyo kuwa kale oo badan ayuu leeyahay waa adkaarta ama dhikriga ugu fadli badan weeye dhikrigeena yawmiga ah gelinka hore iyo gelinka dambe aynu akhriyayno saliga nabigu isagoo 10 jeer buu la socdaa